madaxdu waxaan leeyahay guushiina oo idinka maqan oo raadinaysiin waxay ku jirtaa inaad u naxariistiin masaakiintiina iyo ducafadiina hal qisa meeshan ka xusaa warba lagu xasuustaaye madaxweynaha hadda joogo farmaajo ani wiligay ma arkin isma garanayno laakiin runtii intii madaxweyne oo wadanka xil ka qabtay waa qofka oo qalbigaygu raacsan yahay hal sababaan ku raacay abaalka oo khaas u sameeyay ma jirto arimaha caam oo Soomaaliya uu sameeyay waxa weeyaan Soomaalidana ka warqabto anaku hadaynu nahay ahlul quraan hadaynu nahay dadkii quraanka Ilaahay u dhawaa oo quraanka akhrina Ilaahay quraanka siiyay ninkan madaxweynaha hal arin uu sameeyay inuu soo booqday Dawxa oo madaxweynaha amiirka Qatar uu imaaday si fiican loo soo dhaweeyay oo madaxtooyadii uu galay ayuu wuxuu dhahay intuu sannasan ayuu wuxuu dhahay waxaan rabaa inaan soo booqdo nin la yiraahdo Sheekh Cabdirashiid Sheekh Cali Suufi madaxdii yaa yaabtay oo madaxweynihii Sheekh Cabdirashiid Sheekh Cali Suufi ma yaqaano maxaa yaa waa Cabdirashiid Sheekh Cali Suufi markaas nin qaari oo cajiib ah meeshan joogo waa sheekhayga ah waa inaan soo booqdo anoo soo booqan howl kale ma qaban karo markaas wasiir awqaaf la hadlay waxa la lahay Sheekh Cabdirashiid Sheekh Cali Suufi la sheegayo soo wado madaxtooyada keen farmaajo intuu maqlay oo inuu keen la leeyahay markaas uu dhahay sheekhaasi waa loo tagaa mooyaan iskama meel qof meel la keen ma aan fadhigiisa lagu booqdaa waa madaxweynaha tahay asaa iga weyn waa inaan booqdaa gaariga loo soo qaaday sheekh guriga majliskiisa masaajidkii la qurxiyay xaflada loo diyaariyay meel de waxa weeyaa masaajid awal biliska hilmaan sano iska aha oo dawladii waxa ciriiri bay ku noqotay arintii laakiin madaxweynuhu wuxuu ku adkaystay inuu soo booqdo ninkan lahayo Sheekh Cabdirashiid Sheekh Cali Suufi oo waalidkayga ah abaal badan iyo wala maanta sharaftii wanaaga aan umada la hor fadhiyana sababtii u horeysay igaarsiya Allah yaxfaduhu wa yaraahu ayna ma kan sheekh yaa loo geeyay uu ka soo duceystay intaasi oo ficilkaasi uu sameeyay ayaan ku jeclaaday wax kale oo dhaxmara dhaxdeena asaga ma jiraan ila yoomina hada wax taas iga weyn ma jirin arinta kale aan ku xusuusta ugu duceena waxa weeyaan in wiil oo Tanzania kaalin koowad uu soo galay uu ku martiqaaday madaxtooyada marka caadatan madaxtooyada meelaha madaxdu waxay soo dhaweeyaan madax kale laakiin ninka kaliya oo madaxweynaha hadda wadanka inta xil qabtay oo soo xasuustay maqaamka culimada Sheekh Cabdirashiid Sheekh Cali Suufi noo karaameeyay ninka Sheekh Cabdirashiid madaxiisa saartana wixii quraa ayuu madaxooda saartay wajazaakum Allahu khayr marka dhabaalkaas insha Allah taala ayaan rabeynaa oo gudbiyo aan soo xasuustay wal haqqu yuqal wixii xaqan waa in lagu dhawaaqa la sheega adduunyo iyo damac kalena kama lihin wa barakallahu fiikum assalamu alaykum